ururka Alfatras ayaa dharka ciidda gaarsiiyay qaar ka mid ah carruurta naafada ah kuwa ka soo jeeda qoysaska danyarta iyo waliba carruurta agoonta ee ku nool gudaha magaalada Boorama iyadoo deeqa lagu soo iibiyay dharkan ciidda ee la gaarsiiyay carruurta danyarta ee ku nool gudaha magaalada Boorama ay soo bixiyeen xubnaha ururka Alfatras ee ku kala nool guud ahaan wadamada adduunka. Haddaba markii deeqdan mucaawimada sida rasmiga loo gaarsiiyay dadkani danyarta ayaa waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta iyo carruurtii la gaarsiiyay dharka ciidda waxaana uga mahad celiyeen ururka Alfatras deeqdani ay soo gaarsiiyeen. waan ducaynayaa khayr Allah siiyo xasanaad bay shaqaysteen ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay ka jisaysiiyo ilaahay abaalmarinta ha siiyo waan ducaynaynaa inamada ka waran dharka ciidda la idin keenay ka waran way fiican yihiin wallahi dhammaan haysano dalay baan hay ilaahay ba xaalkayga oo ciyalkayga waa agoon wallahi marka alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay ba mahad inagana ilaahay ba inaga abaalmarinaya jaaliya khayr هذا علمنا دتك ناقود دقيق درك عيدة دارهان أورك الفترس. السلام عليكم waxaan ka salaamayaa dadka deeqda soo gaarsiiyay ciid ciyaalka waan ku faraxsanahay ciyaalka ma sha Allah way soo ducaynaa inagana inaad deeqda ubadka soo gaarsiiseen aadeen daryeelka aad dharka ciyaalka la soo siiyay ma sha Allah ciid mubaarak baan leenahay. عليكم marka hore waa nimaan naqanaa hambaliyo ما شاء الله ما شاء الله الله يباركه وانا بليلنا ما شاء الله الله بركه ها هو ودني مقنقينا بقولكي وبقول ما دبا دharkii ciidna soo gaareen ma hadalla بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahadleh mar labaad waxaan u mahad celinaynaa ururka Alfatras oo maanta deeq kamida deeqiyaha soo gaarsiiyay carruurta baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan ama ku nool magaalada Boorama oo ay kamid yihiin carruurta naafada deeqda ay soo gaarsiiyeen oo ka koobnayd dharkii ciidda oo inamo iyo hablaba aha geestiisa wakiilka ururka Alfatras ee dalka Kanada Maxamed Aadan Cilmi ayaa sheegay inay ka go'an tahay wax u qabadka dadka danyarta ah waxaan mar walba u taaganahay in aan garab istaagno qoysaska danyarta ah ururka Alfatras waa urur Soomaaliyeed oo mar walba taageera carruurta naafada ah iyo kuwa dhibaataysan wuxuu ururka Alfatras ka howlgalaa dhammaan gobolada kala duwan ee dhulka hooyo isku soo duuba ma aha markii ugu horeysay ururka Alfatras uu hawlo samafala ka hirgeliyo deegaanada gobolka Awdal iyadoo ay xusid mudan tahay inuu ururka Alfatras oo barnaamij samafala oo ah qodista ceelal biyoodiye uga hirgeliyay deegaanada kamid ah gobolka Awdal. Xuseen Caataye Jaamac Universal TV Boorama.